oo ugu horeeyaan ururka haweenka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ugaasiinta salaadiinta ururka dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan baan salaamayaa salaan kadib sida la socotaan maamulka gobolka iyo hogaaminaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka ahna fursadaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka sida degmada Baardheere Garbaharey Luuq Boolow Balanhaayo sida la socotaan muddadii bisha iyo dhowrka beri ayaan ku maqnay socdaalkii caasimada dalka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed waxyaabihii aan kala soo kulannay iyo wixii aan idin wadnay saaka diyaar u tahay inaan idin soo gudbino Luuqo anaga waxaan idin soo sahminay barwaaqo waxaan idin soo sahminay horumar waxaan idin soo sahminay midnimo iyo cadaalad socdaalka nagana wuxuu ku saabsanaa sidii dowladda Soomaaliyeed looga shaqayn lahaa sida la socotaan dowladda Soomaaliyeed iyada ayaa xaq u leh awoodna u leh badda cirka dhulka ka go'aan gaaristeeda maadaama ay saa tahay muddadii aan nimanada maamulada gobolka uu jiray aniga iyo intii ugu horreysayba waxaan la shaqaynaynaa waxay ahayd Jubbaland waxay ku shaqaynaysay mandatorkii ogolaanshaha ay ku shaqaynaysana waxaa siinaysay dowladda Soomaaliyeed sida la socotaan Jubbaland doorasho kama dhicine muddo kordhin baa ka dhacday muddo kordhinteedana waa diiday dowladda Soomaaliyeedna waa diiday beesha caalamka waa diiday marka la leeyahay waa la diiday muddo kordhin annaga laftiganaa ka tarabiil baa idin dheer Luuqo ujeedada maaha doorasho marka la qabto inaan ani soo noqonayo lama oga laakiin waxaan rabnaa inaan ka tagno wax waara qof walba cadaaladda gurigiisa ugu tagto mas-uuliyaddana waxa waaye nin walba oo meesha fadhiyo mas-uuliyada dowladda waa annaga dowlad kale ma jirto intaanoo satataba dowladda haddaan marka kala qoqobnaasho iyo waxa waaye nin walba rabitaankiisa lagula shaqeeyo qofka bini'aadanka marna rabitaanka qalbigu ka hadlaa marna maskaxdu ka hadlaa waxa la gaaray xilliga maskaxda laga hadlayay rabitaanku uu dhamaaday maxamed garbuugu hore waa lagala shaqeeya maaha axmed midoobe hore waa lagala shaqeeya maaha midnimo Soomaaliyeed aan ku shaqeyno dowladdanada Soomaaliyeedna aan garab siino nidaamka iyo horumarka iyo barwaaqada iyo waxaan aragno soo aragnayna ninkii maanta la raacan baa nala gaaray kii maanta harag uu ka haraysan baa ka haray dowladnimada waa qoriisu dhiig qoriiska qaad intii laga soo bilaabo dowladda carta ilaa hadda dowladda wax soo qaban male dowladda Soomaaliyeed markay burburtay dowladda Cabdiqaasim waxay soo hirgelisay Soomaaliya intaan u soo horta ma soo imaan karnaa halkaas ka soo bilaabatay maanta dowladda aysan dowladda Shariifna dowladda Cabdullaahi Yuusufna waxay hirgelisay in madaxtooyada Soomaaliyeed la tago oo qofku sheegtay anaa dowladda anaa wasiir uu yiraahdo sheegashadaas uu sheegay dowladda Shariifna waxay hirgelisay in Soomaaliya gudaheeda wal banaanada lagu soo dhisay war anaga dhaxdana waddankan ay dhaxayso barta aan isku dooranno dowladda Xasanna dimuqraadiyaddaas ay hirgelisay qof Soomaaliyeed intuu soo baa qofku dooran noqday in lagu wareejiyo kursiga Soomaaliyeed dowladdannadan maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha anagu hogaaminayna waxaan ka rajaynaynaa qof iyo cod xorriyad idinkeeda ka timaado inayna gaarsiiso qofka arabtaan doorataan qofka arabtaan dhaafidaan sidaas ayay marantay tahay Luuqo ama Jubbaland ama Soomaaliya ma ku shaqayn karnaa aniga ii shaqay qol mugdo qof isku soo haray aniga ii shaqay ma ku shaqayn karnaa waxaan ku shaqayn karnaa aan wada shaqayno dowladnimada ii shaqay maahan aan wada shaqaynaba aan wada dhahno aan wada ka wada tashano masiirka ummadda Soomaaliyeed laakiin anaa iri waqtigeeda waa dhamaaday aniga maxamed gudoomiyaha ha iga yeelin anaa iri inaan wada tashano oo wixii dan noo ah oo ummaddaas horumar u ah
inaan ka wada shaqayno diyaar muutiin raallow